الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. علماء وحيد هذا لكل مقام له مقال. هذا الكستا أما باص كستا وحاجر هذا المناسب هو وعن شعلا أنت إن عقد يردين إن عندك المدود ويرير ومناسبة عن ماشان كهر مرينه وسكوت سابسن مناسبة ما أنت عن سوني مد وقيمة حفظ. مناسبة نوعا وكلا علماء كتل المامان من أفضل المناسبات مناسبة أو فضل بدن أو بشر كويسوي ماد محيا لي وقيب كم ذا ابن آدم كيجريتان كيسة ولذلك بعض علماء وحير هذان جورك قيمها أولية وها كم ذا بقاء بني آدم على هذا الكوكب ابن آدم كهدي وسن سجور سنين أو نسل وسن وحاوي يلنين أدون كان يحاوي قيمة ما يلنين maxay lay ilaahay adduunkan marka uu abuuray wuxuu khaliifo uga dhigay ama wuxuu maamulo uga dhigay basharka ayagu ama si khaldan u maamulaan ama si sax u maamulaan sida darteed ayaa fawaa'id waaweyn ee ku jirta guurka ay kamid tahay waxa kale oo kamid ah fawaa'id waaweyn oo ku jirta tanfiidu awaamirillahi tabaaraka wa ta'ala ilaahay amarkiisa oo la fuliyo maxay yeelay ilaahay baa wuxuu yiri fankihu ma taaba lakum min an-nisaa warguursada gabdhaha wanaagsan oo naftiinu ay diibka ku tahay naftiinu ay raaliga ka tahay sida darteed ba waxaad arkaysaa nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu saxaabada aad iyo aad ugu tarbiyeyn jiray guurka waxa la yiraahdo sababtuna waxay tahay guurku waxa uu bulshada u horseedaa akhlaaq wanaagsan wuxuu la dagaalamaa waxyaabaha dhibaatooyinka bulshada ku keena anwaacdooda kala duwan markasta oo guurku yaraado ama markasta oo guurka la adkeeyo ama markasta oo guurka qiimihii uu lahaan jiray laga yareeyo ama markasta oo guurka temporary laga dhigo sida hadda wayadan dambe uu soo badatay waxa weeye waxa dhimanaya akhlaaqiyadka ummadda wayadan dambe waxa aad ugu soo batay guur bilaa kitaab guur aan gebigiisuba meel u socdo iyo meel uu ka socdo midna aan la garanayn labada groupna way ka wada simay group gaar wada ma jirto marka taas waxay keentay in guurka qiimihii uu lahaan jiray oo mujtamaca dhaxdiisa uu kala lahaa ay waxa weeye ay yaraato guurka waxa weeye waxa soo baxday guur yaani waxa weeyaan telefoonka la isku guursanaya dil rab taas natiijadiisu waxay noqotay telefoonka la isku furo ilaa wuxuu qaabka uu noqdo baa waxa weeye laakiin waxa marka la weyneeyo oo sidii ilaahay u weyneeyay loo weyneeyo sidan oo kale maanta aynu nahay qiimo yeelanaya guurku marka qiimo leeyahay quality uu leeyahay nabigana kaleey salaatu wasalaam ummadda waxa weeye rijaalan wa nisaa'an uu dardaarmay sida darteed ba waxa loo baahan yahay dadka waxa weeyaan guurka waxa weeye u baahan oo awoodda u leh inay guursadaan ayagoo fulinaya dardaaranka Alle iyo dardaaranka rasuulka iyo dardaaranka waxa weeye dadkii wanaagsanaa saxaabada saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Abbas oo nabiga waxa weeyaan ay maadeerayeen albaytka nabiga ah ayaa wuxuu oran jiray nin dhalinyaro ah markuu arko متزوج أنت أم عازب نيوم وحتى هاي نين طوبة وحيد عن صومالي إن أنا يعني جورسين مسوي حتى هاي نين جورسين أدو إلى هذا وان جورسين وحورين شري كفر عليه قبل ناس أضيعن ما عدانا هو قتل أنت عزي وحي أتى فرين ذاتك قبلها وحاول يهان سدا متعظ وكل استعمال إيمانه ومالنا جورسين يمالنا صفرين رجعسي فرين رجعسي وحلو بعين إسكده يحيى عسكر هدي أنا جورسين وحورين شري تزوج والجورسو فرق إسكاكع وإلهي وحن وكسيي حولهن يا شقدن يا أمورتن معمولة يسوع كجورسو فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ومدن ننكي أو خير بدنا ونبي محمد ننكي أو دمرك أو بدن جورسدي بوها إنك استو أنت أستغل الله فصحي إنك أنا الله فصيحين لكن حقول سنة الساعة إن دلت على شيء على قيمة الوحوي الزواج سأدرت يا وحن أقدر دار منا الهرادة iyo dadka waxa weeye guurka baahida u qaba intaad meelaha manuusaysaan sidii wax harmoniya inaad guursataan taas ay inay khayr badan mujtamacana waxa weeye u khayr badan walidaalika ba saxaabada fiiri ridwaanullaahi calayhi markay madiina yimaadeen xoolahoodii ay ka soo waxa weeye tageen soo hijroodeen gaaladii waxa weeye quraysheeda ma ka haysatay ay ka soo cayriyeen ayagoon shilin haysanin shaqadii ugu horeeyay markay bilaabeen ragga qaarkood wixii ugu horeeyay oo sameeyaan guurbo ah guurku qiimo ninna waxa laga yaabaa intuu wadanka yimaado 30 sano joogay bidaar ku gashay inuu ku leeyahay wali waxaan ku guursado maayo barzaaqda ilaahay baa subhanahu wa ta'ala gabadhu risqeeda wadataa ilmaha imanaya risqiisu wataa adigu risqaaga wadataa
أرزاق is gonna be أرزاق وحاوي أرزاق الله يسكت دري أرزاق بلاس أرزاق كلام سنقول نسا أرزاق بيسو بدلش هذه نحوتك عرّيسي وحاوي ولذلك القرآن كم مركز في رسو جورك وحيابها فقر الله بحوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله صدق الله العظيم إن بدن با وحاوي الرجل تيجي جرسدين يجون وحبي إسلهينين مالكاس برواقية بش مركزات كبقية أو جامعات بردكتها حاجة كبحضي على جيل تس أمريكا ماشي أدون كودن بيزمال دمبا أدون لو سير هذه ما دكتي هذا هالكن جواتات كبقية حاجة جرس المر سك جرسو إلهي باكله هذا كان كلا بعد حباح وروريك يوحاوي من منوس كوارجع مولي جرسني رجع جرسدين كفر عليه قبلها وحاوي كان نسيب كان صار كنت أتكلم مالين بمدار الكتبارسان قبلها وحاوي يهان على هيسان نوالو وحاوي كفر عليه جور كان ما أنت أنا فدينه أركانتيس شروطيس وين المستري مركز الجرسنا يوح شروطي أركان بالوباهي أفر شيء بمهم يدهن علمه أفر تاشي ميت كم إذا جور كاجا دو كم مقياي جور كاجا وحكي ملا تذكر قارقات بان السماية أيوة أنت أسميت كم مقياي السمايان قارد بان جرسدي بكلين أفر تاشي كو رضا طرفين ورتك جبرت إيه نينك إس جرسنا يو أين العاري إسكان غضان محالك الذي دنيا هاي إن الإسكو قصف الله بروح ونسربين جبر يا روشان يتوجه odayta dabatan jiraan loo luqun jubaara sidii wadankii oo kale hadda halkan ma jirtay waxa weeyaan taas lama rabo labada ruux rido darafay qodobka waxa weeyaan odayaasha ma walbahaar baagan soo soo noqonayna anaga qodobka labaad aniga waa isfaastan aniga waa isgaranay qodobka labaad oo ayadana waxa weeye muhiimka ah waa tasmiya gabadha waxa weeyaan waa in maxaan ku dhahay la magacaabo ninku mesela gabadha badan buu dhalay gabadhan dhalay baan ku guurinaya ma soconayso gabadha waa in magaceeda la sheego gabadha magaceeda waan haynaa waa Aamina Xuseen Xaaji Hiirado gabadha ma garanay qodobka waxa weeyaan saddexaad oo ugu muhiimsan oo ragga qaarkood ay ka boodaan magaaladana hadda aan joogno hadda qaar baa sameeya waxa weeye weliga weeya gabadha haday tahay waa garoob baa iska meerin kara sheekada wax ka jira malaha ninkii qaba arintaas ayada annaga waxa weeyaan meel saarin ha yimaado maxsharkan oo kale ha yimaado wuxuu gabdhaha ku meerinayaa sheego wax ka jira malaha gabadha ma garoob ha ahaato ama ha ahaato waxa weeyaan gabadh aan weligeed la guursanin mid kasta weliba u baahanta bidaliil nabiga hadalkiisa sallallahu alayhi wasallam uu yiri gabadha ayada ay iskiin waxa soo dhan wax ka jira malaha ayada is bixin karta wax ka jira malaha gabadh nafteedana ma bixin karto gabadh ay dhashay ma bixin karto waxa weeye konton nagood ay yihiin walaashood ma bixin karaan waxa la raadin in ay ilmaadeed yihiin oo maxaa ratay waxa weeyaan maartay qaatuma la raadin oo meel kale ka soo jira qodobka waxa weeyaan muhiimka marka waxa weeyaan u socdo waa weliga lagama boodi karo marka qodobka waxa weeye oo ugu dambeeya oo iyadana waxa weeye muhiimka waxa weeyaan laba nin oo caadiliin ah inay joogaan iyo ka badan intaas oo muslimiin ah ayaa joog intaas oo dhan waxa weeye wanaagsan ka ugu dambeeya oo shanaad oo yaani waxa weeye khulaasada ah oo nuxurka meesha ay ku wareegayso waa qabuulka iyo ijaabka meherkii in la rido waa ka hadda aynu waxa weeye sameyn doono إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا